بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عشر كأنه وحوعا وكب الله بنياه بإذن الله الكريم سورة الليلة سورة القيامة. لا أقسم بيوم القيامة سورة سيكب الله بنياه. سورة القيامة مكية وآياتها 40. سورة داني وسورة مكية waxay ka hadlaysaa mawduuca bacsiga iyo jazaha iyo oo yoomul qiyaamaha arkaanta iimaanka kamida ayay ka hadlaysaa. suuradan marka suuratul qiyaama la yiraahdo ayuu casharkeenu caawa ka bilaabanaya idanka Ilaahay. bismillaahir rahmaanir rahiim. laa uqsimu waxaan ku dhaaranayaa waxaan ku dhaaranayaa بيوم القيامة قيامة مالين كذا. ولا أقسم وحان كدارنا يا بولاهي يري بالنفس نفتي بان كدارنا يا نفتاسو اللوامتي ايدين تبضنات اما هيدارين تبضنات اما دقالي تبضنات. ايحسب الانسان انسانكم وحو لينا يا الله نجمع انا ننسوكل منين قدامه لفيهيس iyo jirkiisa inaanaan mar dambe dib u soo celi karin. sidaas miyuu insaanka gaalka ah oo u malaynaya inaan dib loo soo noolay karin buu Ilaahay leeyahay subhanahu wa ta'ala. bala iskaba dhaaf inaan dib u soo noolay weyne qaadiriina kuwa yuwaada ayaan nahay ala an nusawiya inaan sinno oon ekayno banaanahu asaga farihiisa xataa farxumneedkiisa inaan soo sinno oo aan ekayno oo sinno ayaan awoodnaaba Ilaahay yiri subhanahu wa ta'ala. bal iskaba dhaaf yuriidul insaanku wuxuu doonayaa liyafjura inuu ku faajiroobo amaamahu hortiisa inuu ku faajiroobo yoomka qiyaamaha looga jeeda amaamahooda. yas'alu wuxuu su'aalayaa ayyaana goormow yawmul qiyaamati qiyaamada maalinkeedu ahaada. goormow qiyaamada maalinkeedu dhacaya jeesay gaaladu sida u dhihi jireen baa la yiri. fayda bariqa haddii uu taagmo albasaru aragu wakhasafa aw madoobaado alqamaru dayxuna madoobaado wa jumica ashamsu walqamaru dayaxa iyo qoraxdiina la kulmiyo. yaquulu insaanku wuxuu dhihi doonaa waa jawaabtii idaada yowma idin maalinkaas ayna almafaru makaanu carariddu xaggay ahaatay xaggee loo cararayaa xaggee naarta ilaahay looga cararaa ayuu odhan doonaa. kallaa ka joogse oo ka reebtoon ficilkaasi laa wazara meel malja ah oo loo cararaahi lahu insaanka uma sugnaanin ayuu waxa weeye odhan doonaa weeye gaalku sidaasu macnaha uu wuxuu leeyahay yaquulu linsaanu yowma idin ayna almafaru. ilaahay baa marka wuxuu odhanayaa subxaanahu wa tacaala kallaa ka joogsa ficilkaa baadilka ah laa wazara ay laa malja meel oo u cararo oo u fakadaahi lahu insaanka uma sugnaanin malja iyo meel oo magan galo cadaabta ilaahay uga badbaado gaalka beeninaya maalinka qiyaamo uma sugnaanin. ilaa rabbika rabbigaaga intii ka ah ayay yowma idin maalinkaas almustaqarru makaanu sugnaantu u ahaatay. ilaahay baa loo laabanayaa ilaahay bay dadku u ahaanayaan oo u laabanayaan ilaahay bay macnaha waxa weeye u sugnaanayaan hortiisa ayaa la soo taajinayaa. yunabba'u insaanka waxaa loo khabrayaa yowma idin maalinkaas bimaa shaygii qaddama uu hormariyo oo dunuub iyo wanaagba ah wa akhara uu gadaal mariyey. balil insaanku calaa nafsihi naftiisa dusheeda basiiratun mid ku marakacaya oo arkaya oo ka marakacaya weeyaan. walow alqaa haba rido macaadiirahu garaawyaalkiisa haba rido cudurdaaryaalkiisa haba sheegtee asagaa isku marakacaya buu Ilaahay yidhi. nabigeenna calayhi salaatu wasalaam ayuu Ilaahay wuxuu ku yidhi markii waxyigu ku soo degoonayay laa tuxarrik ha dhaqdhaqaajinin bihi bilqur'aani qur'aanka lisaanaka carabkaaga ha ku dhaqdhaqaajin baa la yidhi. litacjala si aad u degdegto bihi qur'aanka si aad ula degdegto yow kaa lumin oo qabo adoo is odhanaya carabkaaga ha ku dhaqdhaqaajin baa la yidhi. inna calaynaa korkeenna waxaa ahaada buu Ilaahay yidhi jamcahu qur'aanka kulmintiisa
iyo wa qur'aanahu qur'aanka la akhrisiintiisoo lagu akhrisiiyo fa idaa qara'naahu qur'aankii haddii aan akhrino oo lagu soo waxyoodo malagu kuu waxyoodo fattabic raac qur'aanahu akhrintiisa raac ay qiraa'atahu baa looga jeedaa uma inna calaynaa korkeenna waxaa ahada buu ilaahay yidhi bayaanahu qur'aankii oo la caddeeyo macnihiisana lagu sheego kallaa ka joogsee bal iskaba dhaafe tuxibbuuna waxaad jeceshihiin gaalay alcaajilata midda degdegaysa wa tadaruuna waxaadna ka tegaysaan alaakhirata midda dambaysa ya'na waa la akhriyaa qirada abiicamarka kallaa ka joogsee bal iskaba dhaafe yuxibbuuna waxay jecel yihiin alcaajilata midda degdegaysa wayadaruuna waxayna ka tegayaan alaakhirata midda dambayso yowmulqiyaamo ah wujuuhun wejiyaalo yowma idin maalinkaas qiyaamo naadiratun way birbirqayaanoo way ifayaan ilaa rabbihaa rabbigeeda intii ka ah ayayna naadiratun fiirinaysaa wujuuhdaasi wa wujuuhun wejiyaalna yowma idin maalinkaas qiyaamo baasiratun waa mid kaduudan buu ilaahay yidhi tadunnu waxay u malaynaysaa an yufcala bihaa in lagu samaynayo faaqiratun dhabarjebin musiibo weyn oo dhabarjebisa in lagu samaynayay u malaynayaan wujuuhdaani kallaa ka joogso oo ka reebtoome idaa balaqad ruuxdu hadday gaarto attaraaqiya kalxamaha hadday gaarto ama hunguriga hadday soo gaarto ama rubadda soo gaarto ama dhuunta soo gaarto ama kalxamahana waa lagu soomaaliya ay soo gaarto oo waqiila la yidhaahdo man raaqin man ruuxeebaa raaqin tufaya yaa ku tufaya qofkaan bisti weeye wadanna ouna maleeyo ruuxii dhibaatadu ku dhacday annahu ay anna maa nasala bihi dhibkaan ku soo degooday alfiraaqu faaruqiddii inay tahayo oo adduunyadaba uu ka tegayana oo u maleeyo oo waltafati saaqu dhudhunkii ay ku duubanto ama ku maranto bisaaqi dhudhunka kale ama shanshada kale ilaa rabbika rabbigaaga intii ka ah ayay yowma idin maalinkaas almasaaqu wedmidda iyo kaxaysanku ilaahay xaggiisay ahaatay oo dadka oo dhan ilaahay xaggiisa loo wadayaa falaa saddaqa gaalkii la cadaabaya baa laga hadlaya oo cuquubada ku dhacayay falaa saddaqa ma uusan rumaynin ilaahay walaa sallaa mana uusan tukanin walaakin kadaba wou beeniyey watawallaa wowna ka jeestay waxa weeye iimaankii humma dahaba wuxuu aaday ilaa ahlihi ahalkiisa ayuu aaday yatamaddaa xaal ou takabburayo oo waxa weeye ou istaagtaagayo oo tafaakhurayo oo shaafeertamayo ayuu aaday ahalkiisa owlaa halaag ayaa laka kuu sugnaaday fa owlaa halaag baa kuu sugnaaday humma owlaa laka halaag baa kuu sugnaaday fa owlaa halaag baa kuu sugnaaday owlaa laka halaag dhow baa kuu sugnaadood xaq u leedahood owla u tah fa owlaa halaag ayaad owla u taho kuu sugnaaday humma owlaa laka halaag baa kuu sugnaaday fa owlaa halaag baa kuu sugnaaday ayaxsibu insaanu ama ayaxsabu linsaanu labadaba waa la akhriyaa ayaxsabu linsaanu insaanku ma wuxuu u malaynayaa an yudraka in laga tegayo suddan bilaash iyo macno la'aan laa yu'maru walaa yunhaa inaan waxba laga reebayn waxna la amraynin oon waajibaad ilaahay saarin miyuu isku malaynayaa alam yakun miyuusan ahayn buu ilaahay yidhi bini aadamku asalkiisii nudfatan dhibic mani ah nudfatan dhibic oo min maniyin mani ka ahaatay manidaasoo yumnaa ama tumnaana waa la akhriyaa oo waa qiro kale iyada nafteedu ta iyo ya labadaba min maniyin ka ahaatay manigaasoo yumnaa la dhibciye buu ilaahay yidhi ama la riday weeye fii raximi almar'a humma kaana manigii wuxuu ahaaday calaqatan xinjir ayuu ahaaday maxaa yeele sida axaadiista nabigu caddaysay calayhi salaatu wasalaam 40 maalmood oo ugu horreeya uumista carruurtu waxay noqdaan 40 beri buu nudfa yahay kabacdina waxay isku beddelayaan calaqa 40 maalmood bayna sidaa ahaanayaan 40 maalmoodna waxay kabacd ay noqonayaan cad yar oo mubqah cad yar oo hilib ah 120 maalmood kabacdiya nafta lagu abuuraa oo malagu nafta uu geliyaa 4 bilood markii uu carruurku meesha ku sugan yahay weeye markaas ayaa suuradii iyo waxa weeye loo yeelayaa
فخلق إلهي وو أبوري منجي فسددبو كدغي فسوى وو نسميبو إلهي سبحانه وتعالى فجعل وحو كأهيسي منه حقيسة وحو كأهيسي أو كسمي منجي الزوجين لبدي النوع الذكر لبك إيا والأنثى الضمر كويان أو لب إيا الضمر ندق وحلوغة جيدا معناها منجي با قبر إيا ويل لغا أبوري أليس ذلك إلها سميو صنها نووبيه بقادر مديواده على أن يحيي الموتى كوا دنت إنو صنو لأيه إلهي وويهي سبحانك اللهم بلا أيوديه النبي عليه الصلاة والسلام مركو آيات آخريه بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة لا دا وحا لغا معنى سائد أما الصلو تأذبا للقرآن لا أقسم وحان كدارنا يابو إلهي يري بيوم القيامة قيامة مالين كذا ولا أقسم وأقسم وحان كدارنا يا بالنفس نفتي بان كدارنا يابو إلهي يري نفتاسو اللوامتي ايدين تبدنيت أما الدقالي تبدنيتو روحك مؤمنك كل الدقاليسي باعاتك إيا خيراتك إيا أكتغيو أيحسب الإنسان والآخرياء أيحسب الإنسان نواده كرتاسينك والكردقاء سيدا جامع قرآن كابا كقران جامع يدا كالياتو أبي عمر كان سيدا قرادة كقران وباركتين وأيضنا وحوي هوسنق أنا وقرات شرته أيحسب الإنسان أما أيحسب الإنسان بفتح السين وكسر السين لوضو بصحوي أيحسب الإنسان إنسانكم موحو لينا إياه ألن نجمع إنا ننكل مكرم بو إلهي عدامه لفهيس قال كيبا لغهد لياه وحوي أراني إلهي إمسو نولين كرو إمسو أبورين كرو مرق قدال إمسو عرين كرو قال كي أراني يبا لغهد لياه هذا جواب القسم دار مركي ليرا قسم جواب أو ليرا جواب القسم بي حق عربية قادة أما نحوه جواب القسم كوادوسو قدريسه لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة من كدارته لتبعثن ولا تحاسبن تاسا ميشكو قدرا أيحسب الإنسان إنسانكم موحو لينا إياه ألن نجمع إنا ننكل منين عدامه لفهيس بلا اسكبر داف إنا ننكل منه وانكل منينا قادرين حال أنه يكوى أوده على أن نسوي إنان إكينو بنانه فريهيس فرحبنات كيس حبنه سواوين اسكبر داف حتى فريهيس فودو ده سيدو ديبان كسو ديغينا ابو إلهي ومر لبادن قيامة الصون نولينينا بل اسكبر داف يريد الإنسان إنسانك وحو دونياه ليفجر إنو كفاتروبو أو بينيو أمامه هرتيس وحا لوغة جدابا لير يوم كقيامه يوم كقيامه وكاسي هرية يوم كاس إنو إنسانك بينيو قالك أيو دونياه يسأله وحو السؤال يا قال إنسانك أيانا قرمو يوم القيامة قيامة مالك دوان مالك قرمو دعية قرمي إيمانيسا سؤالها النوع عاصي النبي السؤال تيرين عليه الصلاة والسلام قالضو آيات كقرآن كوحاكم مدى مركي لغا هدلاي آياتها إلهي أكيري ويقولون متى هذا الوعد waxay oran jireen goormo dhici doona yabohan oo qiyaamada noo sheegayso oo nala soo noolaynayo oo nala soo kulminayo goormo dhici doona hadda loo sheegaya waata marka faida bariqa albasaru aragu haduu taagmo oo qofka markii naftu ka baxaydo zaaqa albasaru wa tahayyara wanbahaza min shiddati alahwal walmukhadir baa la yiraahdaa khatariyalka iyo dhibaatooyinka iyo dhacaya aragiisi baa taagmaya hatta markii ahadiista nabiga markii laga hadlaayay nabiga kaleeyhi salaatu wasalaam wuxuu yiri ruuxdu waxay raacaysaa waxa weey aragu wuxuu raacayaa oo qofka fiirintiisu raacaysaa ruuxda markii qofka laga sii bixinayo meeshii loo qaadi lahaay oo marka la geyn lahaay ayaa loo soo bandhigaa inta adduunyada joogo markaasuu sii fiirinaya ishu la sii raacayaaba marka waatan sunna ku ah nabiga kaleeyhi salaatu wasalaam sidii oo asxaabtaba amri jiray qofka marka naftu ka baxaydo indhaha iyo in xogay la iskugu laabo oo indhaha iyo loo celiyo sidaas sunna weey faida bariqa albasaru aragu hadii oo taagmo wa khasafa alqamaru dayxuna madoobaado oo dayxu adduunyadii oo dhan baa la duubaya waa madoobaanaya
وجمع الشمس والقمر قرحدي إيا ضيحينا لكلميو oo labadoodaba naarta lagu daro lagu sida ay macnaha waxa way lagu fasiray talabadoodiiba la kulmiyo ayay markaa waxa way naartii lagu darayaa baa la yiri badii baa lagu tuurayana waa la yiraahdaa markaas biyo noqonaya naar bayba noqonayaan maalinka ayuu yaqulu al-insanu insaanku wuxuu oran doonaa oo dhihi doonaa yawma idan maalinkaas ayna al-mafarru caraaridu xagay ahaatay makaanu caraarida cadaabta ilaahay maanta xagee looga badbaadi karaa gaalkii dambiga badnaay faajirkii iyo ruuxii ilaahay khilaafay waajibaadkiisa oo dhami maalinkaas wuxuu oran doonaa yaqulu al-insanu yawma idin ayna al-mafarru makaanu caraaridu waa xagee maanta xageen u fakarnaa xageen cadaabta ilaahay uga badbaadnaa masaa'ibtan xageen ka aadnaa ilaahay baa u jawaabay subxaanahu wa ta'ala kalla la wazarabu ilaahay yiri kalla ka joogso inaad cadaabta ilaahay meel uga fakatee la wazara mid la magan galo meel la magan galo malja oo cadaabta ilaahay looga badbaado lahu gaalka iyo faajirka uma sugnaanin buu ilaahay subxaanahu wa ta'ala nacam uma sugnaanin meel uga fakan kara ma jirto weeyaan ilaa rabbika rabbigaaga intii ka ah yawma idin maalinkaas almustaqarru makaanu sugnaantu ilaahay intii ka abay u ahaatay ilaahay xaqiisa u ahaatay baa looga jeedaa meel looga fakan karo cadaabta ilaahay ma ay jirto ilaahay baaba loo wada sugnaanaya oo makhluuq oo dham u laabanayaan oo la soo wada hortaajinaya meel ay cadaabtiisa uga fakanayaan gaaladu ma jirto weey yunabba'ul insaanu insaanka waxa loo khabrayaa oo loo soo bandhigi doona yooma idin yoomkaas qiyaamo bima shaygii qaddama oo hormariyay wa akhara oo gadaal mariyay wixii uu soo hormariyay adduunka intuu joogay oo acmaal ah oo uu sameeyay oo ama xumaan ah ama wanaag ah intuu adduunyada ku noolaay waa loo khabrayaa horta laga soo dhigaya wa akhara ama uu gadaal mariyana waa wuxuu adduunyada uga soo tagay dunuuba ama wanaaga horta laga soo dhigaya balil insaanu insaanku ala nafsihi naftiisa dusheeda basiiratun waa mid ku marakacaya shaahid oo ku yahay asaga ku marakacaya baa ilaahay leeyahay subhanahu wa ta'ala insaanku shaahidun ala nafsihi wahda yashaddu alayhi sam'uhu wa basaruhu wa rijluhu wa jawarihu sida aayaadka kale ay cadeeyeen waxa ku marakacaya maqalkiisa indhihiisa lugihiisa xibnihiisa ayaa ku marakacaya walaw alqaaha baridu macaadirahu garawshayaalkiiso macaadirahu cudurdaaryal kasta hal yimaade maalinkaas wax u qarsooni ma jiraan xibnihiisa ku marqaati furayo ilaahay subhanahu wa ta'ala nabiga wuxuu ilaahay ku yiri subhanahu wa ta'ala la tuharrik hadaqdaqaajinin hanuuxnuuxin bihi bil quraanka akhrintiisa lisaanaka arabkaaga litacjala si aad u degdegto bihi bil quraan oo nabiga calayhi salaatu wasalaam waxyigu markuu ku soo dagoonayo ilaa aayaadkan uga soo dagoodeen ka hor wuxuu is oranaya baa la yiri nabiga calayhi salaatu wasalaam markii waxyiga uu ku dul akhrinayo jibriil aayadda ka dabadhe ka dhumine ilaahay baa marka wuxuu ugu bishaareeyay jibriil marka uu kugu dul akhrinayo quraanka iska dhageysaa la yiri carabka ha nuuxnuuxin annaga ballan waxaan kaaga qaadnay baa la yiri oo anagu ballan qaadnay inaan quraanka ku kulmino oo uusan ka lumin marka uu dhameeyo sidii baad u akhrinaysaa bal kaama lumaayaba haba ka baqinba taasa laga hadlayo waa bishaaro nabiga loo bishaarinayo calayhi salaatu wasalaam la tuharrik hadaqdaqaajin bihi bil qur'aani lisaanaka carabkaaga sayidka maxamedow litacjala bihi bil quraanka si aad ula degdegto adoo is oranaya ama ka luma inna alayna dushana waxa ahaaday jamcahu quraanka la kulmintiis iyo wa qur'aanahu quraanka la akhrintiiso quraanki inaad akhrido oo awsan ka lumin oo qalbigaaga lagu kulmiyo annaga labadaasba ballan qaadnay fa ida qara'nahu quraanka markaan akhrino oo jibriil oo kugu dul akhriyo rasuulka ilaahayo fattabi' ra' qur'aanahu akhrintiisa ra' thumma inna alayna korkeena waxa ahaadaba ilaahay yiri bayaanahu quraanka la cadeeyo oo lagu fahamsiyo fasirkiisa iyo macnihiisa kalla ka joogse bal iska badhaafay tuhibbuna gaalay waxa jeceshiin buu ilaahay yiri al-aajilata midda degdegayso adduunyada ah watadaruuna waxaadna ka tagaysaan al-aakhirata midda dambayso oo qiyaamada ah wujuuhu wajiyaalo yawma idin maalinkaas qiyaamo naadiratun
way birqayaan way ifayaan way nuurayaan ilaahay wajiyalka nuuraya ilaahay nasiyo jannadii iyo naxariistii ilaahay iyo ridihii ilaahay iyo salaadii iyo khayrkii baa ka nuuraya ilaa rabbiha rabbigeeda intii ka abay naadiratun fiirinaysa ilaahay bayna arkayaan oo mu'miniinta ru'yatullaahi bay helayaan wujuuhun wajiyaalna yawma idin maalinkaas baasiratun way kaduudan yihiin buu ilaahay leeyahay subxaanahu wa tacaala wujuuhun wajiyaalna yawma idin maalinkaa baasiratun way kaduudan yihiinoo waa naxsan yihiin tadunnu waxay u malaynaysaa wajiyaalkaasi an yufcala bihaa in lagu samaynayo faaqiratun dhabarjebin musiibo oo dhabarjebisa inay ku dhacayso saasay u haystaan kallaa ka joogsee idaa balaqad ruuxdu hadday gaarto attaraaqiya kalxamaha hadday soo gaarto oo taraaqida waa cidaamul xalqi weeye halkaa macnaha hunguriga ah lafaha ka agdhow baa la yidhaha taraaqi la yidhaahdaa galowyada iyo halkaa rubadda iyo halkaa markay naftu timaado oo waqiila la yidhaahdo man keebaa raaqin tufaya yaa ku tufaya qofkan bistii ah oo wadanna ou ruuxii maleeyo musiibadu ku dhacday annahu anna maa nasala bihi dhibkan ku soo degooday alfiraaqu faaruqiddii adduunyada uga tegaayay inay tahay oo waltafati saaqu shanshadii ay ku duubanto ama dhudhunkii oo ku duubmo oo ku maranto bisaaqi shanshada kale lugihiina isku duubmaan ilaa rabbika rabbigaaga intii ka abay yowma idin maalinkaa almasaaqu kaxays ee wedmidda iyo kaxaysantu ilaahay xaggiisay ahaato wedmidda iyo kaxaynta qofka addoommada la kaxeeyo oo ilaahay la soo hortaajiyo ama qaybna ah loo kaxaynaya xagga jannada qaybna xagga naarta kulli ilaahay xaggiisa ummadii loo soo wadaya falaa sadaqa ma uusan rumaynin gaalkaani ilaahay ma uusan rumaynin quraankiisa ma uusan rumaynin walaa sallaa mana tukanin buu ilaahay subxaanahu wa tacaala walaakin kadaba wuxuu beeniyey quraankii iyo iimaankii iyo wanaagii oo dhan buu beeniyey watawallaa wuuna jeestay thumma dahaba wuu tegey isagoo diintii inkiraya ilaa ahlihi ahladiisiibuu iska aaday yatamaddaa xaal oo istaagtaagayo shaafeertamayo waxa weeyaan oo isweynaysiinayo oo takabburayo oo tegey owlaa lakadaa macaani badan bay ku fasiraan mufasiriintu sida tafsiirkan imaamu nasafi iyo tafsiirka imaamu alkhaazin iyo a'immada lamidka ah waxay ku fasirayaan owlaa laka marka ay fasirayaan tafsiirkan oo safwaha la yidhaahdo imaamu saabuuni oo kaleeto iyo owlaa laka halaag bay ku fasirayaan halaag ay ku fasirayaan waylun bay ku fasirayaan waylun laka saasay ka dhiganta yaa ayuha shaqiyu thumma waylun laka owlaa laka halaag baa kuu sugnaaday fa owlaa halaag baa kuu sugnaaday thumma owlaa laka halaag dhow baa kuu sugnaaday fa owlaa halaag baa kuu sugnaaday ayaxsabu linsaanu insaanku ma wuxuu u malaynayaa an yudraka in laga tegaayo sudan bilaash in looga tegayo macno la'aan lagu sii daynayo miyuu u malaynayaa alam yakun miyuusan ahaanin nudfatan dhibic miyuusan ka imaan nudfadaasoo min maniyin ka ahaata buu ilaahay leeyahay mani xaggeed nudfadaasoo manigaasoo yumnaa la tuuray ama la riday fii raximi almar'a ama nudfadaasoo tubnaa markii la akhriyo nudfadaa laga sifeeyaa xagga naxwi ahaan uma kaana wuxuu ahaaday manigii calaqatan xinjirow haddana isku beddelay fa khalaqa ilaahay baa abuuray oo ka abuuray insaan ka sameeyey fasawaa ilaahay wuu samay subxaanahu wa tacaala fa jacala wuxuu ilaahay ka yeelay wuxuu ilaahay ka ehaysiiyey minhu manigii azawjayni labadii nuuc addakara lab iyo wal unthaa dhadiga dumar iyo ragba halkaasaa dhammaan laga wada keenay alaysa daalika ilaahaasu miyuusan ahaanin biqaadirin mid yuwaada calaa an yuxyiya almawtaa kuwa dhintay inuu soo nooleeyo balaa inuusan awoodin iska dhaafe ilaahay wuu awoodaa qaadir buu ku yahay subxaanaka allaahumma balaa ou nabigu dhihi jiray calayhi salaatu wasalaam haddaba ilaahay subxaanahu wa tacaala suuraddan la yidhaha suuratu alqiyaama la yidhaahdo ilaahay wuxuu nagu leeyahay subxaanahu wa tacaala la uqsimu waxaan ku dhaaranayaa laa uqsimu laada waad ka gudbaysaa
laadu waxa weeye waxa laga macneeyaa zaa'ido ama silo sida meelo badan baan ku soo marnay laa uqsimu waxaan ku dhaaranayaa biyawmi alqiyaama qiyaamada maalinkeeda yoomka yawmul xisaab ama yawmul jazaa ama yawmul qiyaama la yiraahdo qiyaamada waa magacyo badan tahay yawmul jazaa baa la yiraahdaa yawmul xisaab baa la yiraahdaa yawmus saa'a la yiraahdaa yawmul qaari'a la yiraahdaa yawmul wa'd baa la yiraahdaa yawmul wa'iid baa la yiraahdaa yawmuddiin baa la yiraahdaa yawmul qiyaamaha meesha kugu qoran baa la yiraahdaa yawmul firaar baa la yiraahdaa oo waa maalinka waxa weeye ay ruuxa uu ka cararayo hooyadii aabihiis caruurtiisii sawjadiis saaxiibkiisii walaalkii oo ka cararayo weeyaan uu ka cararaya qof walba wuxuu isleeyahay qof kale ama xaq uu qabsadaa yawmul wasni baa la yiraahdaa oo acmaashaadii oo dhan ayaa kifada lagu saaraya miisaanka lagu saaraya xasanaadkaagii iyo sayi'aadkaagiiba miisaanka lagu saaraya fa amma man thaqulat mawazinuhu فهو في عيشة راضية qofkii miisaanyaalkiisa iyo acmaashiisa wanaagsan ay farabataan nolol wanaagsan ayuu gelayaa ilaahay subhanahu wa ta'ala wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiya laakiin qofkii xasanaadkiisu yaraado oo xumaantiisu badato ilaahay hanaga samata bixiye waxa hooyo u abo ilaahay yiri naarta jahannamo ee waxaan rabaa naarta hawiya la yiraahdo oo naaraha ugu hooseyda waliba ayaa hooyo looga dhigaya halkaas uu durmaya weey yoomkan yoomul qaashiya la yiraahdaa oo dadka oo dhan bay shar ku daboolaysaa yoomul qaari'a la yiraahdaa sida suuratul qaari'a aan ku soo marnay oo qalbigii ummadii oo dhan qalbigii baa qofka sanaxdin la garaacmaya waa yoomun tabyadu wujuuhun wa taswadu wujuuhun dadka wanaagsan wajiyaalkooduna maalinka iftiimi doonaan dadka xun wajiyaalkooduna ay madow iyo mugdi oo fooli doono oo ay cawl iyo mugdi wada noqon doonaan oo cawgu fooli doono weeyaan waa maalinka sidaas ah ilaahay marka wuxuu leeyahay subhanahu wa ta'ala waxaan ku dhaaranayaa yoomkaas cajiibka ah walaa uqsimu waxaan ku dhaaranayaa bin nafsi naftii baan ku dhaaranayaa naftaasoo allawaamati ee eedaynta badneed ama dagaalida badneed hadda nafta lawaamada waxaa looga jeedaa ad-nafsul mu'mina at-taqiyah التي تلوم صاحبها على ترك الضاعات وفعل الموبقات باليري نفط قفك مؤمنك او وناكسني waxay la dagaalaysaa oo eedaynaysaa baa la yiri qofka mu'minka ah naftiisa qofka wanaagsan oo mu'minka ah naftiisa waxa way la dagaalaysaa way eedaynaysaa baa la yiri waxay kula dagaalaysaa maxaad u dadaali weys maxaad ilaahay uga cabsan weys maxaad ilaahay u rumay weys maxaad waxa way khayrka u badi weyday maxaad daacaadka iyo intaas oo khayr uga tagtay wa anzirhum yawm al-hasra qiyaamadu waa yawm al-hasra waxa weeye waa yawm shalayta weeya oo shalaynaya ruux oo shalaynaya yawm al-hasra ayaa loo bixiyay waxa weeye sidaas ayaa la yiraahdaa marka waxa weeye yoomka sidaas oo sida lagu tilmaamay oo yawm al-hasra lagu tilmaamay ilaahay waxa weeye hanoo fuudeeyo masaa'ibtiisa ilaahay waxa weeye hanoo fuudeeyo yoomkaas ayaa laga hadlaya nafta marka ilaahay wuxuu ku dhaartay lawaamada la yiraahdo ma jirta ayaa la yiri ruux mu'mina ama ruux hataa faajira ma jiro ilaa ruux kasta naftiisu qiyaamada eeday doonta hadduu wanaag sameey jiray waxay oranayaan baa la yiri maxaad wanaag u badta weyday hadduu xumaan sameey jirna waxay oranaysaa maxaad xumaanta uga hari weyday marka nafta lawaamada ah sidaas baa lagu fasiray oo quraanku sheegayo lawaama nafta ayada qaybo badan leh نفس المطمئنة سوق هذا مركن سومرين سورة الفجر يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي وصومرنا نفع وحاجة أمارة اللي يراهده إن النفس لأمارة بالسوء سورة الهود نوغو ما دونتا إن شاء الله سورة يوسف ولا أقسم وحان كل دارنا يا أبو إلهي يرب النفس بان كل دارنا يا naftaasoo allawaamati ee eedaynta badneed oo dagaalida badneed oo qofka canaananaysa qiyaamada ee qofka canaana doonta weeyi intaas baan ku dhaartay la tubcasunna waa la idin soo bixinaya waa la idin soo nooleynaya waa la idin xisaabi doonaa buu ilaahay yiri ayaxsabul insaanku ma wuxuu u mooday allan najmaca inaanan kulminaynin cidaamahu lafihiis gaalkan qiyaamada beeninaya
oo waxa weeye wanaagii iyo iska dhaafaya xasanu bisri markuu ka hadlaya nafta lawaamada wuxuu yiri nafsu lawaama wa nafsul mu'min innal mu'mina ma taraahu illa yalumu nafsahu ma aradtu bikalami وما أردت بعملي وإن الكافر يمضي ولا يحاسب نفسه ولا يعاقبها هذا مؤمنكم وحوي مركز نفتيس أسقى بالدقالة يبا مر والبا وحو لي محان خير كان السمي واي محان حمانتا نقول دعي محان وحان بينتا أشياء محان غلط كان نقول دعي نفتيس والله وامم أسقى انتو الدنيا تشوغو نفتيس يابا إيد لدى بتشوغ تبا لكن قالكو أسقى وحا أوردن محصوصنا أيحسب الإنسان إنسانكم وحو أموديا قالك إيه ألن نجمع إننا كل مرين عدامه الله فيهس وقالك بيننا يقيامة قالوا وكوي أرتشرين وحوي هدي أن دمن أعيد نعنط أولك هوستي سنة لقليو مر لبعد ميانا لصونا ولين كراه أرين تاسو أرين سورة قلي سماهن ما سورة قلي سيديه تشرين آيادهاني وحي كسو الدقودين بالليلي سيدا مفسرين تعديين قال لي يراهدو عدي بن ربيعة نبي يمد عليه الصلاة والسلام مركاسو يري حدثني يا محمد حدثني عن يوم القيامة متى تكون بو يري إيغا شاكي يوم كقيامة متى يكون قرمو وهانا يا يوم كاس وكيف أمره بو يري أرنتي سنة إيغا ورن مركاسو نبي الشاكي عليه الصلاة والسلام يوم كقيامة ماني كاسو إيمانيا أحواشي سلاسوي نبي الشاكي عليه الصلاة والسلام markii qiyaamadii looga hadlay siday u dhacayso iyo sida dadka loo soo nooleeyay iyo sida loo xisaabi doono ayuu gaalkii wuxuu yiri law aayantu dhalika al-yawm lam usaddiqka ya muhammad wa lam u'min bika buu yiri kayfa yajma'u Allahu al-'idam nabi muhammad oo xitaa hadan yoomka arki lahay buu yiri wallahi hadan xataa yoomka arki lahay wuxuu yiri ya muhammad hatta hadan yoomka arki lahay law aayantu dhalika al-yawm buu yiri ma ku rumeeyeen mana ka rumaysteen mana ku rumeeyeen buu yiri maalinkana ma rumeeyeen siday ku dhici kartaa ma dadkii oo dhintay oo burburay oo lafahoodii waa hore abo ciid cuntay in markaa la soo celiyo buu yiri gaalki bal fiiri beentis aayad kan ba soo dagooday la uqsimu bi yawm al-qiyamah wala uqsimu bin nafsi al-lawama ayahsabu al-insanu alla najma' 'idamahu ما وحو إنسانك لينيا إننا صوكل مكر لفيه سبو إلهي سبحانه وتعالى نعم إلهي وصوكل مكره بلا اسكبر ضعف إننا صوكل منينه وصوكل منينا مر بعض بان لفيه اسكوكين كيرينه قادرين حال أن يكون أوده على أن نسوي إنان إكينو أنسنه بنانه فرح بنات كيس بنانك وحال ليرهدا وحوي أضراف الأصابع وفرها فودودا بنان با ليرهدا حتى فريه سفودودا سريبا كسو دغينا جيركيسا كلا اسكا دافه xibnihiisa midda ugu yar iyo midda ugu weynba nooceedii baa lagu soo celinaya way macno saasa loogu jawaabay bal iska dhaaf yuriidu al-insaanu insaankan gaalka wuxuu doonayaa liyafjura inuu ku faajiroobo amaamahu hortiis inuu iska beenayo qiyaamada oo xumaanta iskaga dhaco oo dambiga iska sameeyo oo sida xoolaha wax iska cuno wuxuu rabo iska sameeyo oo san fakarayn ayuu rabaa يسأله وحو سؤال يا أصغو تشيس يا نبي سؤال سؤالين ويا عليه الصلاة والسلام أصغو تشيس يا نبي وحو سؤال يا أيانا قرمو يوم القيامة قيامة مالك كذا قرمة صاصو قالك أرمية على سبيل الاستهزاء والتكذيب أصغو لك عنية أو تشيس يا أو أرمية وقيامة من ذكرته إمام فخر الرازي وحو يري سؤال شاني وسؤال متعنت ومستبعد ليوم القيامة waxay oran jireen way yaqooluna mata hada alwa'd qiyaamada dhimi inkirayaan fa ida bariqa albasaru aragu haduu taagmo oo indhaha uu kor u taagmaan indhuhu markay taagmaan buu ilaahay yiri waxas maxay waqofku waa wareeraya waa macnaha dhibaatada iyo masaa'ibta uu arkayo la naxayaada la yiri وخسف القمر ضيحنا مدوباده وجمع الشمس قرحضه iyo والقمر ضيحنا la soo kulmiyo عبد الله بن عباس يا عبد الله بن مسعود waxay ku fasireen la soo kulmiyadaas meesha hadda ay u dhacaan ay ka soo baxayaan aymada mufassiriinta qaybo kalena waxay ku fasireen kulminta labadoodii inta la isku daro
ayaa naarta lagu tuurayaa baa la yidhi baddaa lagu tuurayaa markaasay dab holcaaya noqonayaan naartii baa markaasaa loogu daraya ilaa badaha dhan biyahooda inta la isku furo ayaa biyaha naareeda kulul lagu daraa baa la yidhi maalinkaa ayuu yaquulu linsaanu insaanka ilaahay beeniye wuxuu odhan doonaa yowmaidin maalinkaas ayna almafaru makaanu carariddu xaggay ahaatay xaggee maanta loo cararaa xaggee cadaabtan iyo masaa'ibtan looga badbaadaa kallaa ka joogsee laa wasara megangal meel laga megan galo cadaabta ilaahay oo malja ah oo looga fakado oo looga samata baxo lahu gaalka uma sugnaanin lahu u soo qadara jawaabtii laada ee laada waxa weeye khabarkeedii ilaa rabbika rabbigaaga intii ka ah ayay yowmaidin maalinka ah almustaqarru makaanu sugnaantii ahaantu ilaahay bay u ahaatay ilaahay baa loo wada sugnaanayaa ilaahay bay makhluuq u laabanayaan ilaahay bay addoommada u ahaanayaan laa malja'a walaa munjiya lahum kayru marka aayadahan waxay tusinayaan qiyaamada cajiibkeeday tusinayaan weeyi yunabba'u linsaanu insaanka waxaa loo khabrayaa yoomka qiyaamo yowmaidin maalinkaas waxaa loo warrami doonaa insaanka oo loo sheegayaa bimaa qaddama wuxuu hormariyey adduunka markuu joogay wixii uu soo sameeyey wa akhara uu gadaal mariyeyoo insaanku wixii uu soo sameeyey acmaashiisii middii weyneed middii yareed middii xumeed middii kulli waa loo wada khabraya hadda waxaa la yidhi bimaa qaddama waxaa looga jeedaa adduunka intaad joogto xumaan iyo wanaag waxaad samaydo aakhiri kaaga horreeya qiyaamadaa horta lagaa soo dhiga wa aakharana waxaa looga jeedaa adduunka markaad joogto wanaag baad ummaddii u dhaaftay khayr baad u reebtay cilmi baad ummaddii bartay qur-aan baad bartay khayraad baad u samayday meelo diinta lagu barto iyo waxbaad samafal baad reebtay oo waxa weeye khayr ah khayrkaas aad reebtay adduunyadaad ku gadaal mariday aakhiro kaaga daba imaanaya sida nabigeennu caddeeyey calayhi salaatu wasalaam aakhiro ayuu kaaga daba imaanaya sidoo kale xumaan qofku hadduu ka tago oo ummadda xumaan buu u reebay wuxuu u reebay waxyaabo ay dhegaystaan oo cajallo baadil iyo waxyaabo xun macnaha ku duuban yihiin waa la dhegaystaa hadalladiisii ummadda uu reebay baa lagu sii baadiyooba dad hadda 200 sano ka hor dhintay adduunyada ka hor geeriyooday oo intaasoo qarni duugan ayaa hadalkii ay dubeen naftiisii ayaa ummadaa ku sii lumays hadalkii iyo qoraalladii ay reebeen naftoodiiyaa lagu baadiyoobaya dembigii waa u socdaa weli ma dhammaanayo fiiri qofkii oo dhintay ayaa dembigii u soconaya hadduu wanaag ka tagana wanaaggii isagoo dhintay buu u soconaya xadiis imaamu muslim warinayo ayuu yidhi nabigeennu sala allahu calayhi wasalam isagoo arrintaa ka hadlaya man sanna sunnatan xasana falahu ajruha wa ajru man camila biha ilaa yowmi alqiyaama min kayri an yanqusa min ujuurihim shay'un waman sanna sunnatan sayi'a facalayhi wisruha wa wisru man camila biha ilaa yowmi alqiyaama min kayri an yanqusa min awsaarihim shay'un buu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam waa xadiis saxiix ahoo kutubaha waxa weeye ay soo qaadanayaan nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam qofkii ummadda wanaag u bilaaba ayuu yidhi wanaag u sameeya ajirkeeduu leeyahay iyo inta ku dhaqanta ajirkooda ayadoon ajiryaalka laga nuqsaaminayno qolo walba ilaaha u kamilaya qofkii xumaan ummadda u sameeya oo jid xun ummadda u bilaaba dembigeeduu leeyahay asaga iyo wixii ku raaca dembigooda u soconaya ayadoon dunuubta laga nuqsaaminayno qof kasta dembiga gooni baa sawaabka loo siinaya dembiga uu galay qof walba waxaan rabaa amaalmarinteeda gooni baa loo siinaya balil insaanu insaanku calaa nafsihi naftiisa basiiratun waa midku marakacaya haada basiiratun ku jirta horta qof walba naftiisaa ku marakacaya baa layidhi hadda naftiisa wuxuu ugu marakacayaa iyo camalkiisa xun iyo sancada xun uu sameeyey waxaa qofka loo leeyahay iqra' kitaabaka kafaa binafsika alyawma calayka xasiibaa kitaabkaaga akhriso asaga ayaa maanta kuugu filan xisaab kuugu filan haddii uu damco inuu wax qariyo oo wax khiyaano alyawma nakhtimu calaa afwaahihim wa tukallimunaa aydiihim wa tashhadu arjuluhum buu ilaahay yidhi afkii baa laga xidhayaa markaasi lugihii iyo gacmihii baa hadlaya xibnihii baa kugu marakacaya dhulkii baa kugu marakacaya ambiyadii baa kugu marakacaysa ummaddii baa kugu marakacaya wax kuu qarsooni ma jiraan marka kitaabkaagii iyo camalkaagii baa lagu soo hordhigaya
إلى أي كدهان مجرمينتو ما لهذا الكتاب لا يقادر صغيرة ولا كبيرة وحكستا أو معناها أي سمايين كما تغيو عمل والبي لي مادين وكو قريها بالليل هذي حمانهات هذي وناقهات كل وحي سمايين وحوي وكو ذا قريهين ساسا ليل هذا مركب بصيرة تنتا وحا لوغا جيدا وحا لا يري قفكا markii acma ay xibnihiisu ku marakacaan ayay oranayaan dadka dambaabaahi lima shahidtum علينا war maxaad noogu marakacdeen adinkaan idin difaacayni adinkaan waxa way idin dadaalayni sidaas ay oran doonaan baa la yiri markaasay waxay oran doonaan xibnuhuna qaaluu andaqana Allahu alladhi andaqa kull shay annagu iskama aanan waramine ilaaha shay walba ka hadashiya naga hadashiyay saasay dhihi doonaan bal yuriidu al-insaanu insaanku wuxuu doonayaa bal al-insaanu insaanku ala nafsihi naftiisa dusheeda basiiratun waa mid ku marakacay taada basiiratun ku jirtaa la yiri waa lil mubaalaqa ka riwaayatin wa allaamatin ay lamita ha sida riwaayatin iyo allaamatin taada ku jirtaa ee mubaalaqa loogu daray oo kala weeyay Abdullah ibn Abbas wuxuu yiri al-insaanu shaahidun ala nafsihi wahdah yashaddu alayhi sam'uhu waxa qofka ku dul marakacaya maqalkiisa dhagahaana ku dul marakacaya wa basaruhu indhaha ku marakacaya wa rijlaahu lugaha marakacaya wa jawaarihu xibnihiisa dhan ayaa ku marakacaya buu yiri way ku marqaati furayaan tafsiirka imaam ad-Dabari imaam al-mufassirin ibn Jarir ad-Dabari oo qoray ayaa sidaas waxa weeye qoraya baa la yiri sidaas Abdullah ibn Abbas oo laga soo guurinayo inuu sida ku fasiray aayadan ولو ألقى هبرد معاذيره عذر دار يالكي سهبرد معاذيرتي سهرد وحال لوغا جيدا عذر دار كستا هشيغتي قيامه عذر دار وحب مكو تريو نبيغا وحال لوغو يري عليه الصلاه والسلام لا تحرك حدقدقاجين با ليري به بالقران لسانك عربكاك لتعجل به سياد دغدغتو waxa weeye aad degdeg u sameeydo carabkaaga quraanka ku dhaqdhaqaajin waxyiga si quraanka aad ugu degdegto qabaado is oranay lita'jala bihi hayla marka waxyi ku soo dagoonayo ayuu nabigu wahay baa leeyahay kaleey salaatu wasalaam mid quraanka ka daba akhri maagaya jibriil nabiga ka daba akhri buu maagaya kaleey salaatu wasalaam markaas amarkan la saaray inna alayna korkeena waxa ahaaday jamcahu quraanka kulmintiisa iyo wa quraanahu akhrisintiisa quraankii lagu akhrisiyo weeyaan ama quraanka la akhrintiisa quraankii lagu akhriyo lagu xifdisiyo faida qara'nahu quraanka hadaan akhrinabu ilaahay yiri fattabi' ra quraanahu ay qiraa'atahu akhrinta quraanka raaco malagu markuu akhriyo ka adu iska dhageyso markuu arabkaagana hanuuxnuuxin intuu asagu akhrinayo markuu dhameeyana soo akhri sidii baad u akhri doontaa anaga qalbiga ku kulminayna kaama oo lumayo ثم إن علينا كركنا وحاء هذه بيانه عدينتيس قرآن كل عديه ومعانديس يفسر كيس كل اللغو عدي أحكامتيس أي اللغو النبي عليه الصلاة والسلام وحوير عبد الله بن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل الشدة فكان يحرك به اللسان وشفتيه عرب كيس ونون هجري يشفتين كيس مخافة أن ينفلت منه إنه قرآن كعرضه كبغية يريد وحو دون يا نبي عليه الصلاة والسلام أن يحفظه مركز آيات كانوا سود قودين كبعد وحو هيبو يري إذا أتاه جبريل أدرق واستمع ودقي سجر النبي فإذا ذهب مركو الطغانة قرأه كما وعد الله عز وجل سيدي إلهي أبا لنقاضي أيو أصو أخرجري وحديث بخاري مسلم ورنيان كلا كتشوك سي بل اسكبا دافت تحبونا وحاد تعيشهن العاجلة مدى دقدقيسو إلهي يري أما بل يحبونا قالوا وحي تعليهن العاجلة مدى دقدقيسة والدنيا ويذرون وحي كتغيان الآخرة أما وتذرون وحاد كتغيسان الآخرة آخرة دي بات كتغيسان وي وحاتهن قلاء الدنيا تشعل وآخرة كتغي وآن فكرين باتهن ummadii marka waxa loo qaybinayaa waxa weeye qayb wajigooda oo iftiimayo yoomka qiyaamo waa qaybta mu'miniinta ah oo ilaahay rumaysan iyo qayb wajigooda mugdi oo ka soo baxayo oo madoobaanayo wujuuhu wajiyaalo yooma idin maalinka naadiratun way birbirqayaan waa ifayaan way nuurayaan ilaahay ha nagu daro wujuuhu ahlu saada
مشرقة حسنة مضيئة بالير من أثر النعيم وبشاشة السرور تعرف في وجوههم نظرة النعيم بإلهي سبحانه وتعالى وحد مؤمنين توجهوا ذا كجرانيسا نعمة إيا إلهي برواقضة أو برواقيي أيا كالنورية إلى ربها رب قيد انتي كأبي ناظرة فيرينيسا إلهي بي أركيا المؤمنين تجلى وعلا إلهي با وحوي رؤيديسا نعموين كأيهليان بي كمته وحويري حسن البصري أو تابعه تنظر إلى الخالق وحق لها أن تنظر إلي افتينتنها دوابا الله صغيبة مؤمنين تمركا وحوي ويأركيان قيامة إلهي بأركيان هذا مذهب أهل السنة والجماعة وانا سيدا علماء أهل السنة والجماعة أي مضى صدام أي قاتين وحانت الدلالة عضينا يكمدا آيات كان يا حديث النبي عليه الصلاة والسلام إن مؤمنين إلهي أركي الضونان وحا صحيح البخاري مسلم بكقرا حديث النبي قال له سؤال عليه الصلاة والسلام إلهي ما أركينا يوم كقيامه مركز النبي يرى عليه الصلاة والسلام إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا القمر سيدا الضيحاس طبعا أفريا طبناتك oon daruuro idinka xigin oo kale aad ugu jeedaan ayaad ilaahay ugu jeedaysaan baa la yiri ayaad ilaahay ugu jeedaysaan xijaabka idinka xigaa la idinka faydayaa marka ru'yatullaahi way helayaan muuminiintu laakiin ilaahay aragtidiisa yoomka qiyaamo waxa inkiri jiray qolo waqtigii imaamu Shaafici Ahmad bin Hanbal imaamu al-Bukhari imaamu Shu'bi imaamu Ciisa ibn Dinar salafu saalix waqtiyadoodii qolo kamida bidcooyinkii waqtigaa joogay oo la yiraahdo mu'tazilo la yiraahdo sida qofka taariikhaha akhriyo dham uu arkaya bidcooyinka mu'tazilada la yiraahdo ayaa inkiri jiray oo waqtigii waxa weeye waqtigii salafu saalixa waqtigii taabiciinta waqtiyadaas oo dhan bay joogeen way inkirsanaayeen ru'yatullaahi fil aakhirah way inkirsanaayeen aayadan ila rabbiha naadira waxay ku fasireen naadira arkid maahan bay dhaheen bimacnaa muntadira weey sawaabka ilaahay bay sugaysaa bay dhaheen لكن هذا الكاس هو باطل أئمة إسلام كودن وحي اسكو وافقين رؤية الله مؤمنين تو إني إليهين ولكن قال أيا لغا حجابي هي منافقين لكن مؤمنين تو إلهي بأركيان رحمة داسين هليان وتيال كودن وإفيان إلهي هنقدر ووجوه وتيال يومئذ مانكاس قيامه باصرة ويكدوديهم بإلهي وتيالنا نحدنتا يوحا ومركتا يولولكا يمدوغا يمقدغا iyo naxdinta ka muuqata lama xisaabi karaba wajigii dhanba madoobaanayo kaduud mayo naxsan tadunnu waxay u maleynayaan wujuhdaani an yufcala biha in lagu sameeyo faaqiratun musiibo dabar jabis ah inay ku dhacayso saasay u moodaan baa la yiri kala ka joogse gaalkii baa laga reebayaa degdegta adduunyada degdegeeda raacida uu raacayo iyo qiyaamada beeninta uu beeninayaa la yiri ka joogse إذا بلغت روحه هذي سوغارتو التراقية هلكا كالحمها أو وحوي قالوا يدال هلكا ربضة هذي تماضو هذي هلكا سوغارت أو وقيل اللي يراقفك مركي أو نفبح يوي من كابا راق كطفية يا كطفية الكيسي أقاربتيسي من يرقيه ويشفيه مما هو فيه وريا كطفية أرنتم مال أضق بي مركا مريسا صار مركي دهان أو وظن أو ملايو أن ما نزل به dhibkaas ku soo dagooday al-firaaq faaruqidii adduunyada uga tagay lahayba inay tahayba oo waltafatis saaqu shanshadii ama dhudhunkii ay ku maranto bisaaqi dhudhunka kale ay ku maranto weeyaan oo waltafatis saaqu shanshadii ay ku maranto ku duubanto bisaaqi shanshada kale shanshooyinkiina isku marmaan ama kubka kale oo ku marmo oo macnaha waxa kale oo lagu fasiray saaq bisaaq oo labada macnaha ee saaqo isku duumaya shidada oo kala kulmaya sakaraadka ila mawdka waxa weeye markii qofka uu nafbaxayo sakaraadka naftiisa ayaa shida ah inna lil mawti sakaraat buu yiri nabiga kaleey salaatu wasalaam mawdku wuxuu leeyahay sakaraad aad u fara badan marka shidadaas oo adduunyada markuu ka dhamaanayo oo la kulmayo iyo shidada aakhiro ba isku duumayo wada kulmayana waa lagu fasiray إلى ربك أنت كأبي يوم إذن مالنك المساق كحينت أهاتيو ملائكتي وحوى قيبنا أمدي وحي أكحينا يا النارت قيبنا وحي الله كحينا يا تشنبا إلهي بان أمدي ونبا للسهور تاتينا يا يوم كاستيامويا
falaa sadaqa ma uusan rumaynin gaalkaani ilaahay ma uusan rumaynin qur-aanka ma uusan rumaynin walaa sallaa mana tukanin abujahalay ku soo degootaa la yidhi laakiin xugun caama waayo gaaladii o dhan baa soo gelaya walaakin kadaba wuu beeniyey qur-aankiibuu beeniyey watawallaa wuxuuna ka jeestay iimaankii iyo diintii iyo islaamkiiba u inkiray uma dahaba wuu tegey yatamad ilaa ahlihi ahalkiisii ayuu aaday yatamaddaa xaal ou shaafeertamayo takabburayo iskibrinayo oo istaagtaagayo ahalkiisii aaday ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala awlaa laka fa awlaa laka uma awlaa laka waxaan rabaa awlaa laka fa awlaa uma awlaa laka fa awlaa saasaa lagu yidhaahday awlaada marka waxaa lagu fasiray a'immadu waa ducaa'u calayhi bay dhaheen waxaana looga jeedaa awlaada waxaa looga jeedaa waxay dhaheen mufasiriintu هذه العبارة في لغة العرب ذهبت مذهب المثل في التخويف والتحذير والتهديد وأصلها أنها أفعل تفضيل من وليه الشيء إلى قاربه ودنا منه وحال لوغة جيدا وحال كل حرير سدي أو كل دوادي مصائبتي إبرار قاليه أولى لك هلاك هكو سقناضو فأولى هلاك هكو سقناضو ثم أولى لك هلاك هكو سقناضو فأولى هلاك كو سغناado waxa kale oran kartaa awla laka halaag baa ku sugnaaday fa awla halaag baa ku sugnaaday thumma awla laka halaag baa ku sugnaaday fa awla halaag baa ku sugnaaday waxa kale oran kartaa awla laka halaag dhow ayaa awla ku ahaaday fa awla halaag dhow ayaa awla ku ahaado xaq ku ahaaday ثم أولى لك هلاك دوبا أولكو أهاضي فأولى هلاك دوبا أولكو أهاضي وتكوها بونتها وإذن واديه كرته إمام الأسمعي وكمل مفسرين تي علماء السلف الصالح وحويري أولى لك وحالوغة جدا أي قاربه ما يهلكه وحاؤد دوادي وحلاكين يوي وهلاك أيكوسو دوادي الهلاك قريب منك بل هو أولى وأقرب لك اللوغة جدا مرك هلاقي با كو دوادي او كو اولاه او كو دو نبي عليه الصلاه والسلام waxa la wari gaalka leeyahay abi jahal ayuu saas u qabta gacantiisa leeyahay markaas uu aayadkan ku dul aqay rasuulku عليه الصلاه والسلام awla laka fa awla thumma awla laka fa awla oo ku dul aqay halaag ba ku sugnaaday gaaliyo markaas uu yiri abu jahal أتتوعدني يا محمد وتهددني بويري والله لا تستطيع أنت وربك أن تفعل بي شيئا والله إني لأعز أهل الوادي بويري وحويري مما أنت ديها انشبيسة ودي ورانيسا النبي محمد وهلاك باكو دعاية إله بان كل دارتي أديق يا إلهي با وحبائق مقادي كرتان بل فير الدبال كاس إله بان كل دارتي أديق يا إلها قبا فير قال كسور نمديس نبي محمد وحبا ما قال كرتان بوير ابو جهل با صورناي ابو جهل waxa loo yaqaana sida taariiqaha iyo siirada iyo lagu qaato waxa loo yaqaana fir'aun hadhihi al-umma ummada nabi muhammad fir'aunkeedii aba la yiraahdo dagaalkii badar baa lagu dilay muddo yarow hadalkaas markuu yiri ka bacdi noolay baa leeyahay dagaalkii badar baa lagu dilay madaxiisa inta la soo gooyaa nabiga la soo hordhigay alayhi salaatu wasalaam أيحسب الإنسان إنسانكم وحو ملاينيا أن يترك إن لغا تغيو سدا معنى الآن أما بلاش إن لغا تغيو وأن وحبا لو راعنين وحبا إن الإنسان كالله راعنين ووحو ربو اسكسا ميكره وأن أمر ساهرنين وحبا لغا ربين وأن قيامة للسوبحين وأن للا حسابتمين وأن لأمال مرينين وأن إلهي الهركينين وأن صدح حولها أو اسكد داقيو قيامتنا oo iska nabadgelayo sidaas miyuu u moodaa arrinku sida maaha waa qof kasta waa la soo nooleynaya waana la xisaabtamaya alam yaku miyuusan ahaanin insaankan takaburaya gaalkan ilaahay beeninayahay miyuusan ahaanin asalkiisi nutfatan meesha ka soo balowday baa loo sheegaya ma kibir baa u agba nutfatan dhibic mani'a nutfatan dhibic oo min maniyin ka ahaatay nutfadaasoo tumna la tuuray أما اللدبعيي في رحم المرأة ألم يكؤم يوصنها النطفة دبع من مني كأهاضي منيقاسو يمنى أيضا واقرارك لا توي اللدبعيي أو لطورة يوي هل كاسو كيمد أصل كيسي
أفرتن مالمودو نطفة أهاي ثم كان وحو أهاذي كبعدي علاقة حنشر أفرتن مالمودو حنشر هدنا هانية فخلق إلهي بامنجي قفك أبوري فسوى وون السميو قف سمن أو حبنه سسكت ليسترينيهين أو سكت تنتميسيهين بو إلهي كيالي فجعل إلهي وحو كسمي منهم منجي الزوجين لبدي نوعبا أو ضمر يرقه لبدي النوع أو ضمر يرقه لغا سمي الذكر لب إيو والأنثى ندك لبدا النوع لوغا جيده أليس ذلك إلهاس انت أرموت سمي ميوصن أهانين بقادر مديواده على أن يحيي الموتى كوة دنتي إنو دب أصورنا عليه أو مركي دنتان كبعد السوء إلهي ميوصن أودين سبحانك اللهم بلا إنو صن أودين اسكداف إلهي وضاح ما كان سهانه وداوده نبي عليه الصلاة والسلام آيات مركو أخريه أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى مركو النبي يراهدو صلى الله عليه وسلم وحو كدبا مريتشري سبحانك اللهم بلا قف كستأو قرآنك أخرية آيادان وحا أصلنا مركو آيادان أخريه إنو كدبا مريه دعادي النبي عليه الصلاة والسلام هذا الكي أو كبعد به تشري أو كتشواب تشري سبحانك اللهم بلا سورة الليلة سورة أعلى سيد هذا كهر بان سوق هذا الني صبح اسم ربك الأعلى صبح اسم ربك الأعلى سورة داس وحن ربا سورة الليلة سورة التين مركو النبي وآخرية سورة التين مركو رمايو أليس الله بأحكم الحاكمين مركو النبي يرهدو عليه الصلاة والسلام وحو أرنشر رسولك صلى الله عليه وسلم بلى وأنا على ذلك من الشاهدين سورة الليلة سورة المرسلات والمرسلات مركو النبي أخريه أو قاروا آيات فبأي حديث بعده يؤمنون مركو آيات داس أخريانا وحو النبي ليه شريع عليه الصلاة والسلام آمنا بالله إلهي بان رميني أيو ليه شريع النبي عليه الصلاة والسلام إلهي بان رميني أيو أرتشري سورة دان أصبح اسم ربك الأعلى مركو كرنا واقنا وحو النبي كدبا مريتشري سبحان ربي الأعلى أيو ليه شريع مركو سورة دا انتو صندا ماينين مركا قف كستاو أما الصلاة كتيرة أما الصلاة كتيرة قفكو أما يو كتيرين وأصنو intaas oo aayadood mid kastoo kamida markuu akhriyo inuu adkaarihi loogu talagalayo nabigu sameeyay calayhi salaatu wasalaam inuu ka daba mariyo ilaahay waxaan weydiisanaynaa inuu yoomka qiyaamo masaa'ibtiisa inuu ilaahay noo yasiro oo ilaahay kuwa kitaabkooda laga siiyo midigta oo nagu daro oo tawxiidka iyo islaamka kuwa ku qaatumaysta ilaahay naga dhigo qabrigana ilaahay noo waasiciyo casharkeena caaw intaas ayaan ku soo koobaynaa wallahu waliyu tawfiiq wassalaamu calaykum ورحمة الله وبركاته.